munaasabadan oo ahayd mid ballaaran isla markaana ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Warshiiq ahaydna mid lagu dhiirigelinayay ciyaartoyda sanadkan Warshiiq ku matalaysa tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo ay kula lamaanay yihiin degmada Balcad iyo Warshiiq ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Warshiiq, xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle, bahda ciyaaraha, taageerayaasha degmada iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Warshiiq محمد حسن متان habeenka waxay noo tahay waqti aad u qurux badan oo aad aan ugu faraxsanahay inaan team dhalinyaro ah ee degmada Warshiiq metelay ee ka qayb qaadanayo ciyaaraha gobolka Banaadir markii ugu horeysay waxay noo tahay guul waxaan idin rajaynaynaa guul inaad ku dhameysataan ee koobka aad qaadaan xeebta Warshiiq aad geysaan sidoo kale dadka halkan joogo iyo in kale oo ka badan ee dalka dibadiisa iyo gudihiisa joogtana aad idin la socdaan xafladan waxa idin kugu qabanana waxay tahay inaan garabkiina taaganahay inaan idin muujino dad aad u fara badan aad leedihiin xildhibaano ah madax ah ee ka shaqeeya labada gobol Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir oo idin taageersan yihiin dhammaantoodna waxay idin ballan qaadayaan in garabkiina rogaan habeen iyo maalin ay idin la shaqeyn doonto Ilaahay raali ka noqdo waxaanan rabnaa inay idin naqato dhiirigelin kulankii ugu horeeyo dad badisaan insha Allah waxaad dareemi doontaan degmada Warshiiq oo ah degmo xadaariya degmo diimeed ah oo ah degmo midnimada Soomaaliya ku astaysan haday diiniyan tahay iyo haday shucuubiyan tahay sida gobolka Banaadir ba oo ummadda Soomaaliyeed ugu dhaxeeyay ee dadka u wada degan yihiin ay Warshiiqna dadka ugu wada dhaxaysa ay u tahay astaanta midnimada Soomaaliya ay qayb ka tahay marka waxaan rabaa taas darteed waxaad arkaysan ciyaarta ugu horeysa markaad guuleysataan garab istaaga weyn oo meeshan ka soo bixi doonto Ilaahay raali ka noqdo ka soo qayb galayaashana waxaan aad ugu mahadcelinayaa waqtigooda ay noo hureen ee la jooga ay nala joogaan iyo kooxdooda Warshiiq ay reedda ka taagan yihiin casha sharaftan wax weyn ma ahan laakiin niyad wanaag waaye waxaanan idin muujinaynay inay dadkiina garabka idinka taagan yihiin guul iyo gobonimo idin rajayaan oo raali ka noqdo sidoo kale mas'uuliyiintii iyo martidii kale ee ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan kulankan isla markaana maamulka degmada xilli walba uu garab taagan yahay ciyaartoyda sanadkan ku matalaysa tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir ma ihdin koox garoon gashay soo dheesha kaliya ma ihdin waxaad tihiin ummad iyo jiil dhan yada diilkeeda diishanaya maanta in Warshiiq ay ka qayb gasho kulankaas waxay soo jiidanaysaa mustaqbal dambe iyo jiil dambe indhahoodii iyo dad badan oo magac laho ka soo jeedo waxay ku yada diishahay inaad xambaarsan tihiin inaad maanta adigoo matalayo degmadii Warshiiq haddana ah gobolkii Shabeellaha Dhexe haddana ah ismaamulkii Hirshabelle inaad halkaas soo istaagto waa ku sharaf waana mas'uuliyad ku saaran inaad la timaadid adeecid wanaagsan oo macallinkaaga ah kabtanka ah walaalkaaga kugu jira ah maamulka guud ah inaad la timaadid inaad keentid guul lagu qanci karo oo juhdi iyo dadaal ah ciyaar wanaag aad la timaadaan waxaan idin dardaarmaynaa inaadan noqoninaha dad u soo baxay waan bixi karnaa oo kibir ah iyo dadku han arkaana maya waa inaad hadaf leedihiin waa inaad go'aan leedihiin waa inaad ku tashataan tartanka maanta bilowdo mid joogsa inuusan naqanino ilaa ay heer qaran inaad gaartaan waan idinkugu hambalyahaynaa garabkiina aan taagannahay waana mahadsantihiin runtii farxaday ii taa caawa inaan kala soo qayb galo dhalinyaradan yaryar oo u istaagtay inay u dheesho degmada Warshiiq waxaan rajaynayaa dhalinyaro inaad guuleysataan ciyaartoyda wax aad u fiican waaye laakiin waxay qurux badan tahay markaad aad isku xirantihiin kala dambeynna jirto shuruucda oo ciyaarahana aad u hoggaansantaan maxaa yeelay garoonka markii la galo oo laydinku qayliyo waa la naxaa waa kala daadanaysiin marka waxaan rajaynayaa inaad maaragtay geesinimo meesha ka muujisaan inaad guuleysataan waxaan runtii rabaa inaan u mahadnaqo gudoomiye Mataan oo ku dhiiraday inuu ciyaartooy oo keeno reer Warshiiq hadda ugu horeysa rag waaweyn oo caana ka soo jeedo Muxudiin Darba Weyn iyo Yuusuf Shaqaaq rag ciyaartooyda xulka qaranka soo dheelaa kamid ah idinkana xulka qaranka Soomaaliyeed aan naqad doontiin insha Allah marka guulaan idin rajaynaynaa waana idin garab taaganahay waana idin taageeraynaa insha Allah Ilaahay idinkiis waxaan soo dhaweynaynaa ciyaartooyda degmada Warshiiq
sharafay noo tahay caawa inaan casho sharaf kala soo qayb galno kuna dhiirigelinno insha allahu tacaala tartanka kubadda cagta ee gobolka banaadir ka soconayo mar labaadna sharafay u tahay degmada Warshiiq inay ka soo qayb gasho tartanka gobolka banaadir waxaan rabaa ciyaartooyda inaan iraahdo waydan garab taaganahay Warshiiqna cawada waa ka soo gudubteene si guud state-ka ayaa idin garab taagan insha allahu tacaala haddii alla yiraahdo annagoo kaashanayna dadka deegaanka ka soo jeeda mar haddii la yiraahdo degmada Warshiiq yaa ka soo jeeda waa degmo culus runtii dad fara badan aqoon-yahana waxgarada ilbaxa xalaariin ay ka soo jeedaan waana rajaynaa insha allahu tacaala kulankiisa kala inaan ka soo wada qayb galno annagoo guusha gacanta ku hayna biidni illaahi tacaala insha allahu tacaala waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh guusha laydinkama xigo waxaan idinka rajaynaynaa inaad koobkii degmooyinka gobolka banaadir halkan keentaan cashada xigta waxaa isugu imaan doonaa halkan idoo koobka wata haddii layidhaah laga soo dhowaada qalbigeena idinla jira waa idinla joognaa inta ciyaarta socoto macallimiinta iyo tiimkoodaba waxaan idin rajaynaa isku duubni dadaal iyo inaad higsatiin insha allah inaan hal mar isku nimaado inuu koobkii wadna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku dhiirigelinayaa kolley meeshan waxaa waaye qof walba hadduu soo istaago kolley waxaa u malayhayaa rajaal laga leeyahay waxaan leeyahay dhallinyarada guulaysta waxaan idin leeyahay mar walba garabkiinaan nahay insha allahu tacaala kolley cayaartooyda aniga kala dooran maayo laakiin ninkii firfircooni aan ka dardaarmo xabadkaa ku qaadaa insha allahu tacaala cayaartooyda waxaa la yidhi qof walba waxaa la yidhi rajow leeyahay qof walba niyow leeyahay ani waa idinku faraxsanahay cayaartooyda dhan waa isku mid laakiin waxaan idin leeyahay idin kala qaadqaadi maaye waa idinku faraxsanahay waxaan rabaa inaad guulaysataan guushana sideedaba karti iyo waxay u baahan tahay spirit insha allahu tacaala tan kale goalkeeperkan waxaan leeyahay insha allahu tacaala kaliishid haddaa baxdid kuma ogaama insha allah waa mahadsan tahay kulligiin waa idin salaamayaa ballanqaad iga horreeyey waa jiraa laakiin aniga waxaan rajayaha kulligiin haddaa guulaysatiin insha allahu tacaala rajadeyda ma xumo kolley idinka idinku xiran tahay waa mahadsantihiin